wafdigan oo isugu jiray gudiyada dastuurka heer federaal iyo wasaaradda dastuurka federaalka Soomaaliya ayaa maanta soo gaaray caasimadda Dhuusamareeb. Ujeedka wafdigan ayaa ahaa la tashiga qaybaha kala duwan ee bulshada ee qabyaatirka dastuurka oo noqolkii ugu dambeeyay ay soo diyaariyeen gudiyada dastuurka heer federaal. Wafdigan waxaa Dhuusamareeb ku soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug, gudiyada dastuurka heer maamul goboleed iyo wasaaradda dastuurka Galmudug. kuna hadlaya magaca wasaaradda madaxweynaha jooga ku hadli doona Galmudug guud ahaan waxaan ku soo dhaweynaynaa magaca wasaaradda. maanta waxay noo tahay maalin runtii kamid ah maalmaha aadka ugu qaaliga ah. waa maalin loo yimid in aayaha Soomaaliya guud ahaan laga taliyo, Galmudugna ka qayb qaadato qaybta ugu aadan insha Allah taala. waxaan rabnaa inaad gacmo furan ku soo dhawaataan shaqooyinka aad u socotaan aan la fududeyn doono hadii la yiraahdo. mudanayaal soo wada dhawaada, Galmudug waad u jeedaan diyaar ayay idin tahay. dastuurka qabyo ahna mar dambe ma rabno inaan maqalno, waxaan rabnaa inuu dhameystirmo insha Allah. waxa sugaya dad badan, waxa sugaya dalkan oo dhan, ciidamada sugaya, dhalinyarada sugaysa, shacabka sugaya, baarlamaankeena guud ahaan hawshaas waa dhameystirnay anaga dhankeena. idinkana insha Allah waxaan ka rajeynayaa inta yaroo noo dhiman inaad nala dhameystiri doontaan. aad iyo aad anigoo ku hadlaya magaca waftiga waxaan ku idin leeyahay waan idinkaga mahad celinaynaa soo dhaweyntiina diiran ka muuqata walaalnimadu faraxa leh. aad iyo aad baan maartay runtii ugu faraxsanahay. waxaan rajaynaynaa insha Allah muddada asbuuca aan idinla joogno inaan wax badan kala faa'iideysan doono hadii Ilaahay idmo. waxa weeye shuushow bax Galmudug waa xirantahay lama tagi karo, waa go'doon maanta halkaas ku dhamaatay. sharaf weyn bay maanta noo tahay inaanu halkan nimaadno annagoo ah saddexdii hay'adood ee u yigmanaa dib u eegista dastuurka si aanu ula tashanno madaxda hay'adaha madaxa bannaan, shicib weynaha, culimada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada si loo soo idleeyo dib u eegista dastuurka oo hadda muddo dheer soconaysay. marka sharaf weyn baa maanta noo tahay inaanu joogno magaalada Dhuusamareeb oo ku suntan dawladnimada Soomaaliyeed ama deegaanada Galmudugba. haddii ay noqoto halgankii gobonnimo dirarkii iyo haddii ay noqoto dawladihii dambeba waa deegaan dadkiisu ay dawladnimada Soomaaliyeed wax badan ku darsadeen, maantana inay wax ku oola ku darsadaan dib u eegista dastuurka baanu uga fadhinaa. madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa madaxda gudiyada dastuurka ku soo dhaweeyay caasimadda Dhuusamareeb. gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Galmudug, gudoomiyaha gudiyada madaxa bannaan ee dastuurka, wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka iyo dhammaan marti sharafta kale ka soo qayb gashay soo dhaweyntan qiimaha leh. aad baan idinkaga mahad celinayaa, aadna waa idin salaamayaa. sharaf ayay noo tahay wafdi intaan leeg inaan ku soo dhaweyno Galmudug oo ka mid yahay aasaasayaashii Galmudug xildhibaan senator Cabdi Qaydiid oo halkaan ka sheegay hadda in mataqaana Galmudug ay furan tahay oo ay mid tahay laguna soo dhaweynayo dhammaan mataqaana wufuudda kala duwan iyo dadka daneeya Galmudugba. mar labaad waa idin soo dhaweynayaa, wada tashi dheer iyo wada hadal dheer baan sugaya. dastuurkan qabyada ee dadka dhibay waa ku mahadsantihiin shaqada aad ka qabateen. Soomaaliya haddaan dastuurkan la seexin dawladda Soomaaliya ma saxmayso. marka mar walba waan idin soo dhaweynaynaa, qaybteena waan qaadanaynaa. ku soo dhawaada Galmudug, gacmo furan ku soo dhawaada. wada shaqayntiina halkaan diyaar u nahay, soo dhawaada mar labaad. maalmo kooban oo ay joogi doonaan gudiyada dastuurka magaalada Dhuusamareeb waxa ay la kulmi doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada, gudiyada dastuurka heer maamul goboleed iyo wasaaradda dastuurka maamul goboleedka Galmudug. waxa ay sidoo kale la kulmi doonaan madaxda sare ee dowlad goboleedka Galmudug. Cabdulqaadir Afrika, dalka TV, Dhuusamareeb.